رجو أن كالها هرتوا بابي لبدا هذا والد أديك دوجي أفكاجا إجتري شلي هو يدي دوجي ما أنت أديك أنكو دوجي dhowaan ayay ahayd kadib markii baraha bulshada lagu faafay gaar ahaan barta TikTok-ga oo Soomaalidu iyo dadka idil aadka u isticmaalaan ay qabsatay sheeko xiiso leh oo ku saabsan jilaaga caanka ah ee lagu magac daray JK kaasi oo inta badan lagu yaqiinay inuu haadhay majaajilista weyn ee lagu ixtiraamo dalka JK ayaa ka qaaday inuu ka sabray gabadhii uu jeclaa kadib markii go'aansatay inay blog ka saarto baraha bulshada hadalkan ayuu ka jeediyay bartiisa muuqaal uu ku baahiyay wuxuu JK ka muujiyay inuu ka soo gudbay dhaawacii qalbiga balse arrinta la yaab kale ay tahay in isla gabadhii maanta fadeexaysay iyadoo baraha bulshada ku faafisay hadal xanaf leh oo ku aadan nolosha JK oo ah qof lagu yaqiinay kaftanka iyo dulqaadka Soomaalida inta badanna uu yaqiineen ayaa si qosol la ugu jawaabay isagoo Soomaalida u sheegay wixii hadda ka dambeeya ay gabadhu isaga dalban doonto halka uu hore asaga dalban jiray sheekadan ay si degdeg ah ugu faaftay barta Facebook iyo TikTok iyo dad badan ka hadalhayna ka abuuray arintani dhalani anaga waxyaabo qaar aan qaadanayn shalay surwaalka markay gashanaysay aniga xabad u garaacday inay tan ii iimaanaysa hadaan ogaan lahaa xabadku uma garaacay laakiin bin aadan anahay waa qaldamay aabaan ahay waa jilcay laakiin jilcayga maxuu ilaahay ii soo idmay in la dhaw kuma baahni Yurubaan jooga aniga cid aan u baahanahay mali anigana adiga kuma baahni qofkii ku cishto oo ku ciseeyo Allah ku saaba laakiin aniga iyo waalidkaaga iyo hooyadaada iyo abtiyadaada iyo adeeradaada intaba iyo walaalahaaga kuwa ka yar inay ka yaabaan oo saas daanka ay u qabtaan adiga isu keenay maxay sameynaysaa ma kuwa ka yar inay ku dhahaan naama alkulista tahay ma cabtaa gadaasheeda ma halaabtay واي والد كاغا maxaa u ogaan weysay hooyadaada dishay ana igu dartay adrata hormar inaad gaarto Yurub aku aado wallahi alazim may meesha istaagtid iga kacay ku leedahay sababtoo ah ilaahay qowlkiisa jibisay ilaahay xarigiisa goosay waalidanahay hooyada 24 sax ay ku ilmeenaysay وrbadaas naagaana ku dhalin kor u qaaday aana JK atir heblaaya